انت إلهي سيين كو قناع سيي إيمان كو قبا كو حسلون واللي باني بنبي صلوات ربي والسلام عليه. أيها الأحبة في الله، الله تبارك وتعالى أدون كان استقاد لسي استقانا ماموله وحك استور دعينا ووحوري لو قرو لو قونتي لو قرشي أرزاق دوا قيب سنتهي أجاشنا وقرنتهي كتابك إلهي تبارك وتعالى قال مذي لغو قرين وعلى كريا لي وراقيه نوائن جيجين وحول بإلهي تبارك وتعالى واكل قوندي أرزاق ذا آد هيليسو انتاد نوشه يا أجش هذا يا عمري قاقا يا تبع عاقي وحد هيليسي وحد وايسو ووحوري لو قوندي لو قرشي وحوا اسك بدليانا معه سيداس درادد الله تبارك وتعالى قرشهاس يا قيبينتا يا قوندينتا او سميي حكمت bay ku salaysan tahay adoomadiisa uu yaqaano waxa maslaxadooda iyo dantooda uu garanayo xikmad bay ku salaysan tahay qaybintu iska qaybi ma ah xikmad la'aanna ma ah xikmad bay ku salaysan tahay adoomada ilaahay qaar waxa ku jira ilaahay xoolo siiyay oo jaah siiyay oo mulki siiyay وهدو انتا كقدين لها فساد لها كوا وحا كجرا فقري iyo xiriiri lagu imtixaanay oo hadii wax la siin lahaa aakhiradooda iyo adduunyadooduba fasaadin lahaa Allah baa garanaya xageeba maslaxadu ku jirta dantaadu samaxay tahay xagee dantaadu ku jirta saas daraadeed baa waxa laga maarmaana mar walba dhacdooyinka dhacaya inaad ka dhex akhrido ilaahay xikmadiisa tabaaraka wa tacaala iyo rabbi tabaaraka wa tacaala dantiisa marar badan aynu fahmayno marar badan aynaan fahmayn nabigeenu salawaatu rabbi wa salaamu alayhi waxa uu الله تبارك وتعالى يبتلي عبده بما أعطاه إلهي أدونك سوحكو امتحانا يا وحسيي فمن رضي بما قسم الله له روحي كرالي كن قدوحي إلهي سيه هو يراد هو بدناضو بارك الله له ووسعه إلهي باوحسي وبركيه وانا اواسعيا روحي وحي الهي سيي ان رالي كن نقونينا كو قنعنا لوما بركيو ايمانك لغا قادا وحوسن غاريني با هور orda kadibna suu hor ordahaya ayuu ku taga meel xun buu ku dambeeyaa akhriya duub sidaas daraadeed ba ay laazim tahay inaynu fahanno Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu ku qoray mar walba ogow dantaada iyo maslaxadaadu halkaas ku jirtaa maslaxadaadu waa halka ma aha hadii Allah tabaaraka wa tacaala wax kugu xidhiidhiyay ama cudur kugu ibtileey ama caruur la'aan ama faqri ama wuxun kugu ibtileey ma in ilaahay ku nacay hadii lagu siiyay oo lagu barwaaqeeyay oo kursi lagu siiyay oo madaxnimo lagu siiyay oo xoolo lagu siiyay oo caruur lagu siiyay oo jah lagu siiyayna ma aha in lagu jeclaaday fahamkaasi waa fahamka gaalada Allah tabaaraka wa tacaala wuxuu inoo sheegay fa amma al-insanu idha mabtalaa bini aadamka markuu ilaahay imtixaano wa na'ama u nimceeyo adduunyo ku karaameeyo وواسعيو فيقول ربي أكرمن وحليه إلهي باقي دورتي وان دورنا هاي كرامة ليسيي الدوي مضى إلهي يقحو الشيء الله يتشعل هذي وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه لنك كله هدو إلهي امتحانه والرزق اللي وحديديو
وحوليه ربي أهانا ربي غيبائي أهانيستي واللي نعي واللي دليستي بوليه الله تبارك وتعالى وحولي كلا ساماها ساد مودين معها كان لو حريريين إهانة معها كان لو واسعيين دورشية كرامة معها إلا بضبوا واسدي آياته كب اللودان إذا ما ابتلاه إلا بضبوا وامتحان كان لو حريريين وحال فيرين يا بل إنو صبره كان لو واسعيين وحال فيرين يا بل إنو شكريه أبالك إيا حسابتنا وادن بيسا الله تبارك وتعالى أدومدي سقيبته وحقيبيي ولينظر كيف تعملون بل ساد سميسان بالذين فيرين يا maaha kana in la doortay kana in la tuuray kana la nacay kana la soo dhaweystay maaha sidaasi waa fahamka gaaban ee aadamaha weey waliba fahamka gaalada iyo munaafiqiinta iyo fajarada iyo wax magaradka weey waxoogaa yar markii la siiyo inuu ismahadiyo oo uu kibro oo isla weynaado oo wuxuusan ahayn ismoodo markii waxoogaa xidhiidhi la geliyana inuu sabirka waayo oo argagaxo oo dulloobo waa dhaqanka gaalada iyo munaafiqiinta iyo fajarada waa amma mu'minku wuxuu garanayaa sidan wax u socdaanay rabbi wax u qaybinayo xikmad baa ku jirta kana lama nicin kana lama dooran laakiin Allah wuxuu fiirinayaa bal waxaad samaysaan labada qiso ee quraanku in badan isku lamaaniyo u fiirso nabiyullaahi sulaymaan alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam oo boqor ahaa nabina ahaa ilaahay adduunkan u waasiciyay boqortooyo aan gadaashii adduunka soo marina ilaahay siiyay tabaaraka wa tacaala miisaal buu ahaa waxa lagu imtixaanay adduunyadan iyo tawsicadeeda waxa markaaba la daba dhigaa quraanku daba dhigaa qisada nabiyullaahi ayyub alayhi wa ala nabiyina salatu wassalaam dalika al-abd al-mubtala 18 sano ayaa jidhkiisana la caafimaad darro ku dhacay ilaa dadkii oo dhan ka kala carareen xoolihiisii caruurtiisiina laga qaaday eelkiisii xaaskiisii kaliya ku soo hadhay oo dul joogta oo rafaadkiisa iyo xanuunkiisa iyo dhibkiisa la rafaadsan caruur iyo ehel laga qaad xoolihiina laga qaad dadkiina ka kala carare 18 sano ibtilaysnaa dalika al-abd al-mubtala as-sabir labada miisaal buu quraanku isdaba dhigaa hadii tan lagu geliyana sabir hadii tan lagu geliyana shukri labadaas bini aadamka ilaahay tabaaraka wa taala u dhaxaysay sidaas daradeed baa nabigeenu sallallahu alayhi wasallam wuxuu leeyahay inna allaha tabaaraka wa taala yahmi 'abdahu al-mu'mina ad-dunya allah adoonkiisa mu'minka wuxuu ka ilaaliyaa adduunyada wa huwa yuhibbu isagoo jecel isagoo adoonkii jecel oo adoomada uu doortay kamid yahay ayuu haddana adduunyada ka xakameynaya rizqi baa laga xakameynaya ganacsiga baa laga xakameynaya kursiga baa laga xakameynaya adduunyadii baa loo diidaya laga celinaya maxaa looga celinaya nabigu wuxuu sallallahu alayhi wasallam sida ruuxa idinka xanuunsada aad cuntada iyo cabitaanka ugu diidaan oo kale idinkoo u baqaya ruuxu markuu xanuunsado marba isagoo cuntadii raba oo cabitaankii raba oo inaguna isaga aan jecelahay yaan jacaylka aan jecelahay baan cuntadii iyo cabitaanka ka reebaynaa suusan ugu xanuunku ugu badanin ama suusan ugu halaagsamin oo uusan ugu dhimanin ayaan cuntadii iyo cabitaankii wixii uu jeclaa een la jeclayn baan u diidaynaa si aad u badbaadiso oo u badbaado lillahi al-mathalu al-a'la allana adoonkiisa uu jecel yahay muuminka marar far badan adduunka waa ka qabtaa si uusan ugu ibtiloobin oo aakhiradiisa ugu seegin ha u qaadanin marka hadii laga celiyo oo laga xakameeyo in lagu nacay maaha maslaxadaadii iyo dantaada ku jirta adigu isma ogid kulligan waxaan jecelahay in adduunyada naloo furo oo wada taajiriin iyo inuu noqono muxuu ahay dad xoolo leh oo wada madax iyo kuraas aynu yeelano laakiin Allah tabaaraka wa taala danteena iyo maslaxadeena inaga garanayn imisa dadkiisa kamid aha oo mutawaadicaha oo dadka kamid aha oo xalkiisu mu'tadilaha
oo markii waxoogaa yar ilaahay u furay kibiraani noqday oo sanka taagay oo adoomadii ka dhaxbaxay oo dadkii ku tuntay oo xoolihiisii mahadiyay oo meel aan la aqooni ka dhacay oo khaatimo xumo ku dhintay miyaanan maslaxadiisu ahayn iyo dantiisu waxoogaaga yarka in ilaahay ku ilaaliyo tabaaraka wa tacaala rabbiga fahan xikmadiisa fahan masaalixda fahan mafaasidu meeshay galaan fahan sida gaaladoo kale aragti gaaban oo madaahirta adduunyada lagu kadsoomo ha yeelan rabbigeen meel fog buu waxay naga tusayaa tabaaraka wa tacaala xikmadda ku jirta afcaashiisa iyo qaybintiisa iyo tasarrufaadkiisu inoo tilmaamaya si aan u fahanno waxaa ka dhalanaya markaa marar badan rabbigeen tabaaraka wa tacaala adoonka asaga oo macsiyadii iyo kufrigii iyo duqyaankii iyo xadgudubkii ku jira ayaa loo barwaaqaynayaa maxaa loogu barwaaqaynayaa nabigeennu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam haddaad aragto addoon ilaahay u barwaaqeeyey xumaantii iyo dembiyadii iyo kufrigii iyo macsiyadii iyo dembiyadiina ku dul suganoo sii wata haddana adduunyadii lagu sii furayo waxaad ogaataa waa istidraaj waa loo seeta dheeraynayaa waa loo kaadinayaa waa la durkinayaa waa la daajinayaa waxaa la rabaa meel uusan filaynin iyo si uusan filaynin markuu jooga in la qabto meel xun baa lagu wadaa adiguna waxaa tidhi ilaahay baa i doortayo dee wakaa kursi baan ku fadhiyaa adiguna hoostaydaad joogtaa ilaahay baa i doortayoo hantidaas iyo xoolahaasaan leeyahay adiguna faqiir baa too waa dawarsanaysaa ilaahay baa i doortoo magaca baan leeyahay adiguna magac la'aan baa tahay war doorasho ma aha faham gaabnidaada waaye sidaas daraaddeed rabbigeen tabaaraka wa tacaala xikmaddiisu waxay keenaysaa isagaa addoommadiisa yaqaan alaa yaclamu man khalaqa wa huwa allatiifu alkhabiir yaa faqrigu ku habboon yahay yaa qaninimadu ku habboon tahay yaa kursiga maslaxadiisa ay tahay yaysan ahayn allah baa yaqaana waxaan dantaada ku jirin ha ku qamaamin waxaan maslaxadaada ahayn ha raadinin wixii rabbigaa kuu qoondeeyey raalli ku noqo nabigeennu wuxuu yidhi sal alla alayh wasalam irda bima qasama allahu laka takun aqna annaas wixii ilaahay kuu qoondeeyo kuu qorshay raalli ku noqo waxaad noqonaysaa dadka ruuxa ugu taajirsan ee ugu qanisan qalbigaa kuu degaya laabtaa kuu xasilaysa waad shukrinaysaa dareen waxaa ku gelaya raaxo xasilooni alxamdu lilaah intan hadduu ilaahay ii gartay maslaxadaydana ay ku jirto alxamdu lilaah ilaahu adaa ku mahadsan sidaas daraaddeed haninimaa ku jirta marar fara badan wax yar oon adduunkaaga aakhiradaada kaa mashquulinin laba daarood baynu maraynaa tani waa degmadii adduunyo maalmaynu joogaynaa waa ka soconnaa xaqan cidina ku waari mayso degmada dambana waa midda rasmiga lagu waari doono labada degmo way kala muhiimsan yihiin labada degmo tan hadday kaa mashquuliso tii ka muhiimsanayd waad khasaartay ficlan laa shak sidaas daraaddeed baa nebigeennu sal alla alay wasalam wuxuu leeyahay qorraxi ma soo baxdo ilaa hadday soo baxdo laba malag baa dhinacyaheeda ah labadaa malag way dhawaaqayaan dhawaaqooda waxaa maqlaya inta dhulka joogto oo dhan marka laga reebo insiga iyo jinniga inta kaleo dhan waa maqlayaan labada malag maxay leeyihiin ayuha nnaasu halummuu ilaa rabbikum waldadow xagga rabbigiin u imaada war kaalaya rabbigiin caabuda war xaqa rabbigiin kaalaya guja war yaadha war kaalaya labadan malag dhawaaqaasay ku dhawaaqayaan halummuu ilaa rabbikum faina maa qalla wakafaa khayrun mima kahura waalhaa wix yar oo kugu filan oo aadamaha kaa kaafiya ayaa ka khayr badan wax badan oo ku mashquuliya wax badan oo aakhiradaada kaa mashquuliya ujeeddadii lagu abuuray kaa mashquuliya ku lugooya ku hor orda ayaa dhib badan waxaa kuu dhaama wax yaroo kugu filan aadamaha baryadiisa kaga kaaftoonto baahidaada kuu daboola aakhiradaadii iyo daartii rasmiga inaan kaa mashquulinin
انت سادانتو كخير بدن بو النبي صلى الله عليه وسلم سيده دبنا النبي صلى الله عليه وسلم سيده قال حديث في صحيح مسلم وحو النبي صلى الله عليه وسلم قد أفلح من أسلم ورزق كفافا وقنعه الله بما أتاه وحال باني روحي إلهي إسلام مسيح إلهي بالرميسين دين تنو الرميسين وهو قانزاني رزقي سنة وحالة قدية كفاف ووحان كابضنين كوغفلا انت إلهي سيين كو قناع سيين إيمان كو قبا كو حسيلون واللي باني بنبي صلوات ربي والسلام عليه سيداس دلاديت وحي إلهي كو قوندي كو قري كو صبر وحي مصائب او كوغو كيني عديدكو كوغو كيني عذركو كوغو كيني عافمد لأنت او كوغو كيني عديدك او كو قليي وامتحان اللقمان نعيني كو صبر ميله هذا قوسن دونتا إن شاء الله تعالى هدي إلهي أو كوكو امتحاني يدنا وامتحاني عافمات عرور أهل أرزاق ذو الواسعي كرسي مدحنمو جاه مقع الدنيا ذن هدي لقسيي واحد دحدة ديالنا لقو متشعلانين واللقو امتحاني شكريو إلهي التواضعو أدومديس إحسان أسميه ربك الشكر جيس كددال أبال كيدي مره قوسن دون بإذن الله تبارك وتعالى صلوا وسلموا على خاتم الأنبياء والمرسلين اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارض اللهم عن الصحابة والتابعين وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ردنا إليك ردا جميلا ووفقنا لما تحب وترضى اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.